jasiiradan lagu magacaabo Sentinelese ee ku taalo dalka India waxaa ku nool qabiil aanan la ogeyn qaabkay u nool yihiin in ka badan 100 sano. Yacni waa dad ay adag tahay in la dhaxgalo ama la ogaado qaabkay u nool yihiin. Kama warqabaan ama lama socdaan adduunka kale, weligooda lama gumaysan, waxayna sidaasi u nool yihiin in ka badan 100 sano. Sidoo kale ayaga dad ma dhibaan oo ma soo dhaafaan jasiiradooda, laakiin qofkii isku daya inuu tago jasiiradaasi dib dambe looma arko. Wiilkan oo u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Joe Allen ayaa isku dayay inuu tago jasiirada Sentinelese isagoo ujeedkiisu ugu weyn u ahaa inuu ku soo faafiyo halkaas diinta Kirishtaanka. Waxa uu kireystay doon ay leeyihiin laba qof oo Malay dabata ah, sababtoo ah ma helaysid doon sharciyeysan oo ku geynaysa jasiirada Sentinelese. Dowladda India ayaa ka mamnuucday inay halkaasi tagaan doomaha sharciyeysan. Doontii waxa ay geysay ama ay soo dhigtay xeebta jasiirada Sentinelese waa ayna ka soo laabteen. Wixii markaasi ka dambeeyayna wiilkaasi dib dambe looma arkin. Maalmo badan oo ay raadinayeen helikobtaro badan, ugu dambeyntii maalmo kadib waxaa meydkiisa lagu arkay